وزير كذا لكن حافديني وزير حافدين هذا وزير حافدين هاي حكومة الحكومة ده ما أوران كرو شقة أبوك هبل اللي هو فايدة ما أوران كرو هذا حتى هذا صادر بتصادر تبغى قرنية أو أدب بوليسة هو البوليسين شعب كبرمي يقول كأول كنا البحوث بقى qof reer guud ay joogan inuu si cad cadaan toos ugu shaqeeyo agaasinka financiga haduu xataa yeelin reerku wuxuu keenayaa konton ama 20 reerkuga ayagu inay soo dhaqmaan oo qof waliba qofnimadiisa soo noolaada kuma ceebeen laakiin Soomaalida kala ku ceebaysan inay qaab qabiili u dhaqanto aadiya Soomaalidu imika niyo qofkeega nin walba ninkii hanooleysto Soomaaliya heestii sharmabood ilaa imkan waxaad aaminsantahay inaad reer hibil iyo inaad hoos u dhigto hoos uma degin waan dhulka Soomaaliyeed oo dhan Soomaalida dhulka ay digto oo dhan aan maalin walba barnaamij ka soo qaban karo aniga shakhsiyan inaan qof dhisan oo caadi ah noqdo iyo aabahay igu dardaari jiray barigan yaraa qaarba soo oran doona ninkaas waa qabyaaladaysta oo isaga reerku meel ka dhaxalsiiyay iyo oran doona ma nuuhay way marka waxaad leedahay markii hore jigjigaan ku koobnaa iyo deegaanka Soomaalida hadda se shanta Soomaaliyeed baan tagayaa hadda hawaan isbaraar baan marayaa waxaad adiga xor tahay waxaad rabto baahin karto xor u tahay wixii adiga sida caadiga midkii sidee kugu kala duwan yahay farqi intee la kala dhaxeeyo marka هذا مواد عبد الحميد المواد معها استيل هنا دبيها هاي مأمسني waxaad tiri muddo tababar baan ku maqnaa maalintii tababarkaad ku maqnayd caqabada noocee aad la kulantay waxaan jeclaan lahaa mawduuca inaan dhaafno cabdi xamiid waan kaa wada daaranayaa mar kale kulli waan markaa wada qodqoraysaa saashayda ku adagtahay kulli waan markaa wada qodqoraysaa laakiin waan kaa wada daaranaya mawduuca waan ka gudbaynaa waan ka boodsiinayaa انت تلفزيون دولتك شقيسي موضوع الدبده واحد كان مسعيد انت لو خري هي حتى او خرتها ودفرتي مليون بريفضه وصبيستay meel bulshada kala hadasho xilliga horena had dawladda u shaqeyn jirtay waxaad baahinaysi xadidna ka waran in markaad isku miisaanto sidee u kala culus yihiin fursada noocyada hadda haysataa baad dooran karaa markii horese mise waxaad ka soo baxday baad soo oran kartaa meel muhiim ka ahayd oo taas ku fiicneed mise hadda ayaaba chance badan oo ku hadasho iyo dhaqaale ka badan ba sameyn kartaa hada ka ota dhinaca dhaqaale sameynta waxay ku xidhan tahay qofka shakhsiga iyo dhaqaalihiisa ay ku xidhan tahay wada shaqada dawladda hayaba waad sameyn kartaa shaqooyin kale oo lamid ah markaan u imaado midda xorriyadda iyo qofku waxa uu sheegayo aadiya هذا يشير أن واحد بني آدم كشروع ده حاجة حيركوا هدانا هجين خلص ومالك مركل بس واحد شراء حركة كرك سالو وصحله حير بلد هذا حركة خلص ومالك كرك لقى حير بلد هذا مركل حير كاسي وهو هيا خلص ومالك هنا تبايلي مركل تماتو عوض كيو ألعاب هو هاي لوحده هيلان بلو يقانا قار حرر بينادين ها dadku inta badan way xararka iyo inay haylaan ku kala dhaqaaqaan oo kala cararaan waxa isku hay waa xeerka xeerku sida uu aqal Soomaaliga u xajinayo isku hay ayuu bulshadana isku haya maxaynta ha marka hadii aanay media ama bareefad ha noqdo ama public ha noqdo ama wax walba ha noqdo nooc walba hadii aanu xeer iyo mabadi uu ku shaqeynaya jirin xuduudu dhaafaya marka waxaan u aaminsanahay in xeerkii halka kaga shaqeynayno hadda aan ku shaqeynay waayo imika hadda anoo kulli meelaha iyo baraha kala duwan ee bulshada qofka caayay inaad waa ku arkay moodan kartid anoo qof ku dhigan qofkaasi waa tuug waa sidan leh sidaan kuu sheegay in ka cudur daartay qof haddii adeegii siinayo service ku yahay wuxuu yahay waa karaa laakiin qofka shakhsiyadiisa ana wax ka sheegay wali cid ii haysa ma jirto horay iyo dambaba marka waxaad leedahay marka shuruucdii aan halka kaga shaqeynay marka waxaad leedahay xukuumadda deegaanka Soomaalida hogaaminta qaar waan isku dhici karnaa laakiin systemka dhan iyo shaqada deegaanka Soomaalida shuruucdeeda iyo magarasa biiliyeeda iyo bulshada saan ugu shaqeynaya iyo waxaas
aad bay kala duwan tahay oo laakiin shakhsi isku dhix karna laakiin system ko dhan isku dhix karna ما سلاكم أولا سلاكم أولا معناها هل شخصية أو سيستم ككوتشرة أما شخصية على سيستم ككوتشرة وأظن كتاع عليه قصة إيه سينا يعني صالحان دوري دور صادق بحسها أقوان سيجي بحسها وين صبر لغة ما أي بحسها هو صبر لغة دون نيسها ويحي أفلقادين كرتا مسؤول كورن كرتا صبر لغة سفي عي مسيس أما عصبونيسين تمر كانوا باهناي مسيسين أما عشور سيستم كله بيحنايا إسكندرية بيرم بيلا ورن كرتا ويديدي كرتا لكن شخص سيجارة ومعاي كرتا بس لك أنا بلاي هذا أديت مركز سيستم كي أديك قابك أديك لبوسيني ورن كرتا أديك سفي عن لي مسينين أما شخص سي أديك كان إنه بحيا دب كما أها ورن كرتا لكن قف بني آدم ميرسو تاجن كان توجي ري بلا عمودن كت ويدا در marka mabaadi'daasi ihagay ee markaan dawladda ku jiray nidaamka dawliga ka tirsanaa ihagay umba ilaa hadda ihagay kulliyad danin experience badan leh oo wax badan og baad tahay oo wax badan soo bartay professor baad tahay professor ka ka daayo teemay waa iska caadi la reerkii inta wuxuu iska wadayo taa weydii hay professor jaamacada teemay shahaadada guriga ku taalo way professornimada wax weyn ma aha لكن وقت كي أسمع ده بوسس بدن أو كي توتا إيو إن سخرامين توكل إيو إن بوسس بدن برضه يكون بدن لكن زي بروفيسور إذا تهيني أو كيها اللي هو كي هاي وحن واسك عادي وأنت هذا بروفيسور كهول بدن بالله هول بدن بالله ما بروفيسور نبض ده سو قولي قولي لا هول بدن ما تفهمش شيء ما هول بدن بالله ما أنت قولي تعلمه أنت هول بدن بالله ما كل درجوي كمان كلامه شقيني يوقف أكاديميشيان كان يكون شقيني عم جامعات كشقيني كل نظام بوح برشة كل حكي درجوي باكر بروفيسورين بدل اللغات إنه وحلا صار بلا وقف كحلات هي أديك بوشة وقبت صالحة ريسيرشي دراسات ده وسميه تربيين صالحة هدي وأنت صوب ببلش ليه لبعتين ببلش هدول ليه oo publish ka hadana meesha lagu publish karay journal ka lagu publish karay ay tayadiisa ku kala xiran tahay wuxuu qaadan karaa assistant professor ama professor full professor marka professornimadu uu la iska ma waxay u baahan tahay dadaal fara badan intaas oo daraasad inaad samayso u baahan tahay muddo inta dhan shaqada dawladda jaamacadda ku soo jirtay iyo u baahan tahay laakiin professornimadu inay tahay caadi ma balaha professornimadu Soomaaliyeed doctorkii professorka la iska wada qaadanay هذا هو استقالة كلام يصير. وين هنسكيل ما تسوي شيء. تذكر مركي مقالة كاتاوريان اللي هي بروفيسور خضر. اللي بيصير له يتكير بروفيسور بقى. لكن واحد شيء يقول والله حتى كده هنجوبين بروفيسوريين وجرادة وآخرين kuwa kale miir qaba meelaha kale marka dhacay intaas waa iska dhacturtay way ka kaftan خضر أنا صور نقطة أنا هذا إنت السيستم كدولته كجرتي يا أنت دبيتك هاي واحد تريبولي عاد واحد مساهينا كجرة وده إن واحد جرته انترس قارة قف أدقو إن حين طاب كاجو هرو كلا أتكجرته يا إن أتصيب بريفلا وشقيسو بالشدة سوينا كتير بحمر كرتو مقالها صوت دوبتي أنا واحد شري سيد حلية تلفزيون كدولة كشقيني سوانين تروجه برنامج تكسر رفاطي وتعشى هي ولا إلا باهيو وأديك لفتر كابو هدرين يسو أنا تجعلين إن فلاش تو كجرو وواحد كذا لسك توري دون أما لسك تورو إن كنت أديك حرت هاي واحد ربط باهين كرتو حربت هاي واحد أديك الصاد عادي إن يو مسكحة هذا يو مقراص هاي أرتدى هذا أنا ربينا بحيث ما هنا واحد بقى أنت تسوق جلاد باهين كرتو midkii sidee kugu kala duwan yahay oo farqi intee la dhowr xiyal marka fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelkan soo follow gare like saar muuqaalkan sii share gare oo la wadaag saaxiibadaada aad iyo aad ayaad mahadsan tahay عبد الحميد adiga hadda wax dii sheegaysay inaan jirin wax la yiraahdo saxaafad xura inaan jirin bal hadda sheegaysay markaan saa ku leeyahay telefishinka CNN marka uu Mareykanka gudihiisa ka shaqeynayo iyo marka uu wadan Afrikaan colaad ka dhacday tabiniyo isku soo uga tabiyo so what direction sidaas si lamid ah aan ku wada ku dhameeyay hadalkiisa sugo sidaas si lamid ah BBC
ingiriiska gudihiisa waxaa ka dhaca iyo qaraxa muqdisho ka dhaca iyo qaraxa london ka dhaca isku si uma tabiso waxaa la ilaalinayaa danaha la ilaalinaya danaha dalka ayaa la ilaalinaya marka wax kasta oo ama danaha dalka kasoo horjeesta ama danaha dadka kasoo horjeesta ama bulshadan dhaqan ahaan iyo qiyam ahaan uga soo horjeesta dee dadka talada kule ile dad bay waxaan talada ka go'daa dadka talada kule way kugu diidi karaan taasna inaad dhibsato maaha because of waqti kasta haddii uu kaa gala barnaamijka adigu shaqadaada iyo waajibaadkaagii shaqada dowladda ugu shaqeynaysa mushaarka sii qaadanaysa waad gudatay markaan waxaan isku arkayay culays marka inaad isku saarta maaha barnaamij anigu soo sameeyey baa la joojiyey lagama joojin jirin laakiin hadda la joojiyaba tusaale ahaan culays inaad isku saarta maaha waxaan culays isku saarayn mushaarka waxaad ku qaadataa waqti qofka dowliga dowladda u shaqeeya saacadaha laga iibsadaa saacadaha laga iibsaday waxay ahayd tusaale ahaan 3 saacadood ama 2 saacadood ama mararka qaar mee task based bal lagu shaqeeyaa marka dowladda laga shaqeeyo meelaha shaqooyinka gaar qaarkood waxa lagu shaqeeyaa waa in aad 3 barnaamij qabataa toddobaadkii ama 2 barnaamij qabataa lagu qoraa waa task based way qaarkood waa time based wax lagu qorani waa inaad 8 saacadood xafiiska dhex joogtaa xafiiska 8 saacadood shaqeysaa marka anigu markaan barnaamij aan soo sameeyay ama soo sameeyay warkaas ma soconayo waxaan u arkay inaad shaqadii aan la igu talagalay soo qabtay culaysna isku masaareen tan imikana cabdixamiidow dawada ku sheegay qiyamkii iyo waxyaabahaas la ilaalinaya faraha badan leh meel walba haddii lagu ilaalin waayo way qiimo beelaysaa aniga inaad waraysi ka qaado oo aynu wada fadhiisano is waraysano dee marar badan baad igu lahayd niyo waan ku waraysto aniguna aan kulahaa maxaa ka warramaa macnaha aniga waxbaan ilaalinaya waxaan leeyahay waxaan bulshada muxuu soo kordhinaya wuxuu soo kordhinaya bulshada iyo waqtiga kaga lumaya inaad isbaalansi karaysaa mararka qaar aad iyo aad waxaad moodaa systemkii dowladda inaad weli difaacayso rajaynta leeg marka qabtay telefishinka dowladda mar kale ku laabato ood ka shaqayso hadda cabdixamiidow muwaadin baan ahay muwaadin baan ahay xaq baan u leeyahay inaan ka shaqeeyo inta xukuumadda madaxweyne mustafa joogto xaq baan u leeyahay haddii isku dhacdeen may iskuma dhicin وبالله حركة قبل مدحوين أصلا ما اسمه مدعين اسمه مدعين عند حميدين وتصالحان هذه عاد ما أنت صوصنا يسبب برنامج ولا كعاد صوصنا يسي وعاد ترى هذا بوليس كديجانك إذا ما بوليس كديجانك كوف سبب من البلايك جيستين حتى ترى هذا والبرنامج كاسي ولا كعاد صوصنا يسي رجين تلي بتقطع إن اللي بحيد دوني هذه إذا بدأ شرفت له حكومة deegaanka Soomaalida iyo si guud ba ciidanka macnaha ay tusaalaan ku siinay ha anada tusaalaan markaa jawaabay ha rajayda la sharafta leh kala duwan hadii ay kamid yahay fadliya samayso si sharci ah aniga xor baan oo aynaan soo baahiyo iyadoo uu kacay tahay ma jiro tusaalaan bad sheekada tusaalaan ma jirto okay hadda samaysan markaa barnaamij sharci darra oo sharciga ballansan wax jira aan beer abuur hadda samaysan rajayda la bad inaan lagu xirin banaanka sii joogi doonto deni waxaan sameeyay inuu sharci yahay inuu sharci darro yahay awood ogahay xitaa markaa sameynaya ogahay inuu khalad yahay inuu sax yahay marka sida caadiga waxaad ogtahay editorial policy wax la yidhahdo ku shaqeysa saxaafadda dawligu editorial policy wax la yidhahdo ku shaqeysa editorial policy waxa weeyaan warka markaad soo qabato in uu jaranjaro maro jaranjaradii haddaad mari weydo in de macnaha cawaaqibkeeda la kulmayso waad ogtahay anigu waan ogaa in cawaaqibkaaga taa la kulmayo waa waqtiga qarsoon weynahayn laakiin haddana dambiile bay haysteen la soco waxuma iga xumaada laakiin dambiile bay waanaan ka shaqayn karaa xaq baan u leeyahay ma garata taa meehe waxyaaba meelo ka weyn xil baan isku yaaba cabdixamiid meesha inaad wareegtay agaasi noqota de me macnaha agaasinku waa meel yar hoose waa maxay maalgelidiisu iyo cudurkiisa waxaan leenahay madaxweyne professorka inaad maareeyo ka dhigtaa meesha kuba wareejisaa waan leenahay xil baa meel muhiim ah u socdaa maareeyaha meesha haddaan qarin ka waran tamam meel hoose weeyaan maareeyaha certificate haddaad noqoto ka waran hayde budget iyo miisaaniyad fara badan ma taalatay waxa intaad u baahan tahay miisaaniyad bulshada u shaqeysa والسلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لي هذا بالنسبة لي هذا. يلا في يوم بعنا هو ما حملها يوم
meelahaas wax ma yeelan meelaha yaryar حتى ميل قمة بانو بهانا يود أديك دم حتى بحنا يا أديك في عنا كبيه مركب مصطفى كويس تا كرسي لا كرسي كسر رأي كرسي مصطفى دي حفيزية بدنا واحد كده حفيز كم مدحوينها كذا على بدني سووا مبين لما حفيز كم مدحوينها حفيزية بدنا كذا على بدن بيجروح لقى مصطفى كرم هذا مركب مصطفى جل قطع مصطفى ولا ويحصل ما هي عادة هو والله لو قص الصومال ده هيكون هذا الكتاب هو هذا وي ميل ها وي ميل فلا ضبانتها أنا قوسن كرم ما بحنا إن هذا هو اللي بعد أنا نيك اللي يورن طلع حكم نيك أسوي حكم ماشي كم قبسني كرسي هذا يركور كم فرق قبسين بالله يورن طلع كرسي هذا يركور هوس بدي سوي ولي هوس بدي وضع ولي هوس بدي وضع ما قدرت كاسسو marka baashu waa dulka xadis كاسو dhaqaale ma leeyahay waa dulka xadis tay baashu korkan kaga xadiyay la soco way bisoo xafiiska waraaqaha qoladii ay sheegay madaxweyne meel aflaaf ragga naga geey in hadal baha yaraan sheekada ku soo dhaxdalo jacbar saad أنا أتصاحبون هاي بوها. حفيز وراقان نكس وصار. أتصاحبون هاي بوها وانسكور هاي نو. واحد نعمل ذا لكن حفيز أنا روح ربي يتي مدي. شيء كذا حفيز وراقوه ما عاد تأخذ ذبي. إسلام عصري. أدرسها قلقنا كسلامنا. قلقنا كسلامنا. سؤال اللي شويه اللي شويه أنا ضيق إسلام عصري يوم كنا ولا يوم كذا ولا بالإي كذي. سو إيميل بري لك سوق قبته. مدحينها يلا كر ود مني وضحي أو ما دركتي إيميل بري لك سوق قبته جودي اللي كان أو مد جودي كسوح نعم عبسي اللي هو كان أنا محفوظ سبعة بوقتي عبد الرزاق عبد الحميد إذا مسعودي بان ملاين كل صعب أنا محفوظ وخذ ربع بوقتي عبد الرزاق ومحفوظ يسوون سيدو بوقتها waxaan u booqday anigu waan ku sheegay kursi kuma eedeysnayn kursi kuma eedeysnayn waxaan ku eedeysnaa macnaha wax iska caadiya way boosti aan qoray oo macnaha aan ka duwaneyn boostiyadaan ku soo qori jiray facebookayga sidaan ku soo qori jiray ma boosti kale u qoray boostiga wax yar oo macnaha qoraal buu ahaa waxaan ku eedeysnaa way dambiilana ma hayn istilina dambiilaha hay ma aaminsani ma garatay dambiilnimo iyo wax kala duwan qofku inuu qalad sameeyo qofka hada bilaha maxkamad baa la saaraa qodob lagu eedeeyaa wala xukuma ama la sidaaya ma la sideeyay laakiin ma jirto halkaas lama nagan marka anigu aan xabsiga ku jiray xabsiga kala la keenay abdisan aadiyan adeegii alaab intaan soo qaaday fara badan oo dad dhowr milyan laga dambeeyay adeegii keenay aadiyan adeegii alaab intaan soo qaadan oo imaday way نصيف حمو أن هرتيبا لسودا يورن يركل نبتي وجي درساق والله الله كورني وقشري يعني صاب وقضي على نبتي أقول كان نيوان سويني وانكحهم هاي كمان إسلامنا نحلو ما نعمل وين فريم بارو دريانا اللي كوشري وحلي كل نونك وحصنا يعني ليش اللي بيسوي عليك وحصنا يعني كوي من كريماية وحوي يوم بقول صراحة وين صحيح ما قرأت صحيح ورم هاي أنا حفيز وراقة ورم هاي يبدو لكن ور هذي وحيالنا أوكي أنا لفترة كده شو أنك حادني هالكاسة كجبودي إن وحويان على كل حال حكومة مدحوينه إن وسير إيو إن كراسر صره لو ديك بان لنا بروفيسور كما دامو نين ودي هورتا دنبي كلي maaha nin deegaanka dhinac uga baxay maaha waa nin wax bartay sidoo kale waa nin xog badan oo dawladdu leedahay haya warartu waran taay ugu kugu bogadinaya inaad ka dhowrsanaato muwaadin baa tahay deegaanka rajaad ka leedahay dawladdu way ku xidhay way ku soo deysay barnaamijkan u hagaajinaya adigana kugu bogadinaya inaad xogaha dawladda weliba dhowrto weliba ku farayaa وانا وحويان وانا وحق لوجو ليه دولة كرسي iyo kursi ka sareysa waxa weey inaad gaadho oo qabato way tahay xukuumaddu halka way ka taawanaysaa in habeenaydu waxaan maqlay adigoo horta waa xukuumaddan commentiyada gaarka kaas war gaarka la iska hayaa screenshot xitaa hada qaado wal oge bulshadani way ku ogtahay dawladdu way ku ogtahay aan ku soo dhameeyo aan ku soo wareejiyo mikrofoonka marka
inaad xogta dowladda dhowrto oo kugu bogaadinaya way muddo badan oo intaasoo sanadada dowladda la soo shaqeynaysay barnaamijyo kala duwan baad haysaa xogo badan oo khaldan oo mas-uul si khaldan uga siibtay baad hayn kartaa xogo kala duwan baad hayn kartaa oo dowladdu leedahay aad baan kugu bogaadinaya inaad aad ka dhowrsanaato su-aalahayga dusha kaaga soo dhacaya anaga warbaahin bareefad aan nahay oo saad marka horeba ii sheegtay waxyaaba bujubaja ayaa iska walwalaaqana waa laga yaabaa laakiin haddana qofka muwaadinka ah uu garanaya waxa qiyamka iyo migaranaysaa midnimada iyo sharafta dowladda iyo waxaasoo dhan wixii deegaankiisa way muwaadiniin baa leeyahay anagoo warbaahin bareefada ah dhaqaalaha yaga fangaraynayna ay meesha ay dhaqaal naga soo gelayna haddana dowladda meeshii looga soo dhaco ama haddii xitaa lasoo weeraro annaguba wax weeye waa difaaca dowladda waayo intaas waxaan u difaacaynaa waa muwaadinimada qofka xitaa mas-uulka isagoo adeegsanaya dhaqaalihii dowladda isagoo adeegsanaya gaadiidkii dowladda isagoo dhaqaale kala duwan haya annagu intaasoo dhan ba haynin oo adeegsanayna dhaqaalahayaga adeegsanayna waxyaga ayaan difaacnaa dowladda taana dee annaga cidi ha nagu ammaanto iyo dhaqaalaha nagu siiya malihi laakiin muwaadiniin baan nahay oo muwaadinimadayada iyo deegaankayga iyo jacaylka dhulkayaga iyo deegaankaygaan difaacanayna sooma laakiin qoladan dowladda midida daabkeeda haysa iyagu waxa inta badan ma yaqaanaan oo iyaga qaar haddayba xitaa sidayada ahaan lahaayeen inaanay deegaanka ay soo macaaran lahaayeen oo aad u soo caytami lahaayeen iyo wax badan eryan lahaayeen baa laga yaabaa qaarkood qoriya qaadan lahaayeen laakiin annaga muwaadiniin baan nahay wax badan baan weli xiriirina gudahaan ugu jirnaa wixii cagalahaa horta uu ka cararay deegaanka run ha isku sheegno adeer wax leenahay inta joogtahay horta waa kii cagaha ku cararay waayey carari kari waayey waxgii deegaanka joogay ku kasta oo cagalaha uu ka cararay waa kan xukuumadda soo caaya annagu xukuumadda ma soo cayno laakiin wixii iyada mararka qaar in firi la isku qaato la soo feerfeeray tahay waan qaadanaynaa baa leenahay iminkana halkanna waan u feeraynaa waxaan leenahay inta timaha le loo feeri karo iyo macalkuudi kurunba adeero qarniyo hoosa la isku eego ilma adeeryaalow dee garyaale taqaanaaye waxa weeyaan hoosa la isku eegaan leenahay cabdixamiid oo wadaad taaganayay sida caadiga de waxna waa laf waxna waa lud soomaalida laf iyo lud bay kala tiraahdaa marka sheekooyin howlaha xajooyinka qaar la isku qabto waxyaabaha laftaa waxa weeye wixii maad aragtay xogee muhiimeed looga soo dhici karo dadkayga iyo dalkayga waan jeclahay waxa weeyaan waanu haynaynaa wixii kaftan ee commentiga su-eelishadana waa caadi taasi dhib malaha aad iyo aad oo kaliya muwaadin baa tahay oo inaad bahasha soo wada qaawisato marnaba maaha bahashan xitaa systemkan waxaan aaminsanahay hadda jooga haddaan si walba madaxa iskula galno macaarad lanaga dhigo lana eriyo xitaa fallaaga haddii lanaga dhigo ani waxaan aaminsanahay wixii laf ah inaan marnaba jebinin way fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelkan soo follow gare like saar muuqaalkan sii share gare oo la wadaag saaxiibadaada aad iyo aad ayaad mahadsan tahay qaybaha dambe barnaamijkan maraan akhdaro cabdixamiid horta kulley anigu Soomaaliyan muwaadin halkan muwaadin baan ka ahay aad iyo halkan aan joogo muwaadin baan ka ahay halkaana muwaadin baan ka ahay marka haddii aan anigu is xidho waan hoos isku celiyo isu soo koobo waan koobnaan haddii aan anigu isballaariyana waan ballaarnaan sanaamisane sida caadiga qorshaha hadda waxay igu jirta inaan deegaanka Soomaalidu waa igu yaryahay deegaanka Soomaalida inaan iska ballaariyo waa aan dhulka Soomaaliyeed oo dhan Soomaalida dhulka ay digto oo dhan aan maalin walba barnaamij ka soo qaban karo way marka waxaad leedahay markii hore jigjigaan ku koobnaa iyo deegaanka Soomaalida hadda se shanta Soomaaliyeed baan tagayaa hadda waa isballaarin baan marayaa deegaanka Soomaalida wuxuu ka mid noqonayaa deegaanada Soomaalida badan ayaa wareegaysa hadda waa isballaarinaya way Soomaalida wuxuu yahay inaad dhaafto oo wadamada halkan gaadhi laga yaabo iyaga halkan haddaan bishan joogo bisha dambe inaan Djibouti joogaan rabaa way bisha ka dambeysa waxaan rabaa inaan Kenya joogo Nairobi joogo ama Garissa joogo bisha kasii dambeysa waxaan rabaa inaan beledweyn iyo maad aragtay xamar joogo way marka haddii aan dee anigu isballaariyo oo aan cabdixamiid uu barnaamijkan sida aan u qorsheynayo oo u ballaarino way ballaarnaanaysaa iyo bulshada Soomaaliyeed baynu adeegsiin doonaa aad iyo haddii laakiin anigu aan soo koobo oo aan local soo koobo oo aan buurame iyo dhacdooyinka daily maayirka iyo barsaabka xariga ka jaray iyo haddii aan halkaa dhaafi waayo
dee waxaan noqon mid ka mid ah oo wiilasha reer buurame maad aragtay aanan codkooda meel dheer gaadhin ayaguna dee buurame aan aad dhinaca ugu dhaafin aada uga fogaan su-aasha kugu dhex tirsaday warbaahinta gobolka wadal koley waxaad tiri halka muwaadin baan ka ahay warbaahinta gobolka waxaan ka aaminsanahay anigu intaan ogahay horta rag badan aan saaxiibo nahay oo rag iyo hablaba leh halkan baan ka salaamaya oo waxaa jooga bulsho badan ay ku xidhan tahay bulshada barnaamijyo kala duwan oo badan oo baahiya laakiin ma lahan bay ila tahay access ah in nidaam warbaahineed oo caalami ah ay magacnaha tabin karaan haddana waxay u baahan yihiin inay tababaro helaan heer caalami ah tababaro kala duwan ama kuna tahay in angalada aad ka buuxiso oo dhalinyarta aad tilmaanto aad jixiso maya cabdixamiid waxaan aaminsanahay dhalinyarada gobolka dhalinyaro badan oo aada u active oo firfircoon baa ku jira warbaahinta ku dhex jira dhalinyaro aqoon ahaan iyo dhinac walba inooga taya dhisan oo inooga taya badan baa ku jira laakiin waxaan aaminsanahay dadka boorama ayaa hoos u dhigay iyaga yareeyay dadka shacabka boorama iyo gobolka aweel ku nool baa hoos u dhigay sababtoo ah maaha shacab istaageera maaha isgacan qabta maaha sababahaan ku arkay boorama shacab istaageera markaad leedahay waxaan uga socdaa soomaalidu iminka niyahow qofkeega nin walba ninkiisa nin walba ninkii ha noolaysto soomaliya heestii sharmaboy soomaalidu nin walba ninkiisu noolaystaa taa marka la idhaahdo cabdi xamid dhegeyso waxaan kaa rabaa adigu markaad aragta barnaamij uu kasoo dhex muuqday dhulkii aad ku dhalatay ama aad ku barbaartay ama dad aad garanayso inaad sheergaraysaan kaa rabaa ma sheergarayaan laakiin ribuuran kan waa kii hebeley waa loona kii musafiinkii waa loonay mugtay ma sheergarayaan ha marka iyagiiba hoos kugu soo noqday iyagiiba tafahays haystaa marka waxaan aaminsanahay anigu inay nimankaasi xasan galeedna ku xiran yihiin ninkii soo qorayay sniibar baa shacabka boorama laayay oo ay falow u yihiin goodir t v na ayna falow ahayn baan aaminsanahay warka iyagu ay intay adig kaala degaan warbaahinta kale anigu waxaan ka aaminsanahay qodobkaan ku raaciye warka aanu tusaale ahaan waxaan soo sameeyey barnaamijkan waxaan soo sameeyey inta nin kale oo shisheeya intuu aniga la dego barnaamijkaas oo iga dhowr garaysto intuu isagu soo gashadaba kulmeeshiisa iyagu sheergaraynayaan laagtana u saarayaan commentikana weliba ka bixinayaan ma aha no igama oo dheeraadhamaysto sabab baan iga qadamay codka cidda u beeraysa waa reerkoodii iyo cidihii kale ka hadlayay u sheego laakiinse adigoo ay garanayaan igu xiran pagekayga aad sii marto waagi beriba inaad falow iyo laankiisa siiso maxaa diiday marka aday soo dhexgeliyay su-aasha reerku isma gacan qabta marka dhinacyo badan bayna isku gacan qabta waxaad arkaysaa dadka kale iyada oo cidda bilaa taageera cabdixamiidow anaa cadaynayo yersuk aan kaa dhex galo taa sababta in isku gacan qaban baan ku sheegaya horta bulshada gobolka awdal si guud sida soomaalidu u nooshahay uma noola xaqiiqadan kaala hadlaya sida soomaalidu u nooshahay uma noola soomaalidu nidaam qabiil bay u nooshahay oo qabiilism tribalism bay u nooshahay laakiin reer awdal sidaas uma noola waxay u nool yihiin qaab individualist qof waliba noloshiisu u nool yahay ka macalinimadiisu aroortii ku ka lahaa uuna kasoo hoydaa waxa kaleba kuma mashquulo bulshada gobolka dee warkaan kaa dhameeyo marka ninka reer wadani wuxuu keliya u baahan yahay isagu ninkan wiilkan isagu inuu ku taageero reehebelnimo iyo inuu ku taageero ma rabo waxuun isagu waxuun buu rabaa wax ka kororsanayo inta boorame halkan la joogtana inuu wax badan uga soo kordhayn buu aaminsan yahay kuwa kalena marka ay arkaan tuuladii yaraday kusoo jeedeen tusaale ahaan dad ka soo samaysa barnaamij dad ka soo samaysa tuula heblaayo tuula ekas dad barnaamij ka soo samayso dadka tuula ekas iyo tuulooyinka u dhow degan oo dhan la qabiilka baa kuu sheergarayn sababtay kugu sheergarayn waxay rabaan tuulada magacoodu iyagu leeyihiin reerkoogu leeyihiin magacoodu korkaco magaca tuuladu inuu korkaco marka magacii tuuladu inuu korkaco ay rabaan kuwana magaca tuuladii waxaasi culays kuma lahayo qof walba sharaftiisa iyo sumcadiisa iyo shakhsiyantiisa ayaa culays ku haya waad aragtay iminka tusaale ahaan aan dhamaysto waad aragtay iminka tusaale ahaan dhalinyarada markaad aragto magaalada jijka joogta aad isku haybta tihiin haybtaa tahay kasoo jeeda dhammaantood markaad aragtay xafiisyada dowladda ay dhex joogaan ay adeega u hayaan
dadka ugu adag ee loogu kalsoonida badan yahay weeyaan haddana saameyn badan kuma laha sababtoo ah individualist weeyaan dadku qof walba mushaarkiisa yar noloshiisa yar wixiisa yar buu haystaa laakiin waxa ay soomaalida kale u nooshahay ka agaasinka xafiis agaasinka ka yahay wuxuu rabaa 20 reer guud inuu xafiiska keeno qofka reer guud ee jooganaya inuu si cadcadaan oo toos ugu shaqeeyo maya agaasinka financiga hadduu xataa yahay nin reerku wuxuu keenayaa 50 ama 20 reer guuga dee agaasinka financiga anaya 2-3 ugu darboonaya iga faa'iido ninka qoraya ha marka waxaas laakiin kuma mashquula reerku marna waxaan ku leeyahay qaabkii qof walba shaksi walba noloshiisu nool yahay halkan reeraha kalena reer ahaan bay isugu xidhin yihiin isku wada nool yihiin marka waxaa laga yaabaa weriyaha aad aragto ama Khalid Fogaari ama hebelka muxuu hayay aan dhahno weriye egasan dhahne iyanan hal qof magacaabini waxaa sheerta ugu filan reerkooda laga yaabaa marka hore nafteeda inay reerkiisu soo qalabeeyeen weriyaal badan man xogtooda hayaano oo reerkoodu qalabeeyeen oo iibiyeen xogtii kamaradooyinkii qalaba marka ninka weriyaha reerkiisu qalabeeyeen wuxuu aaminsan yahay inuu reerku ku darsaday miisaaniyad aadiya marka interestiga reerkan uu ka shaqeynayay fahno aadiya laakiin ninka weriyaha intuu soo rafaaday wada dheer soo maray kamarad yar oo 200 biya ka soo bilaabay ee imika 90 decent karaad ku iibsaday ee taas ku shaqeeya ku barisiiyay maxaa ka galay reerkiisa iyo xabadiisa waxa kama geeyay laakiin ayagana sidoo kale waxba kama gelin barnaamijkiisa sheer garayaan that's all marka haddii shacabka gobolku ay ahaan lahaayeen shacab ku baraarugsan arrintaa weriyaha ayaa sheegada jooga weriyaasha kale caalamka la sinaan lahaayeen kama kartilitaan arrintaa waxaan aaminsanahay halkan keliya maaha meel walba oo reerku jooga caqabadana way haysataa aad iyo aad boqolkiiba boqol hadda cid ka dhaqaalo badan ma jirto meel walbay joogaan haddii la idhaahdo inta weriyo ku abtirsata inkastoo aniga laftarkaygu aan aad u jeclayn inaan reerka aad uga hadlo macnaha hoos inuu sii dadejinayni hoos inuu sii dadejinayni macnaha waxaan ku leeyahay ilaahay qaybtan uu ka xidhayba waxaad arkaysaa iyagoo mararka qaar ku fiican yihiin ma no ceeb maaha mararka qaar dhegeyso iyaan qofku inuu dhaqaale kuu tiri uu lacag ku siiyo wax qabashada maaha qofku siyaabo kala duwan buu ku taageeri karaa fursado kaaga faa'iideyn karaa xitaa ilaahay dhinacan baasha horta lama barinba xitaa lama baran doonaan ayaanu cabdixamidow kuma ceebeynaya iyaga ayagu inay saa u dhaqmaan oo qof waliba qofnimadiisa u noolaada kuma ceebeynayo laakiin soomaalida kalaa ku ceebeysan inay qaab qabiiliya u dhaqanto aad iyo waxaa lii sheegaya xafiisyadeena ka mid ah oo lagu soo meeleeyey agaasinka xisaabaadka inuu haban malaynaya oo yidhi wasiirkii agaasinka lasoo meeleeyey waa qabiilkii waa qabiil hebel xafiiskan reer baan u fadhiyaa reerkaasaan agaasinka noqonayo ku yidhi ayaan xog ku hayaa maxaan baan ku hayaa xog ma rasmiya ma in wasiirkii xafiiska joogay uu yidhi reer baan u fadhiya xafiiskana ku aanan xaafadda ahayn iman maayo macnaha waa warqad wasiirka laakiin xaafadiini wasiirka xaafadiina adiga wasiirka xaafadiina kugu matala xukuumadda dee ma odhan karo shaqa abuurka hebel looga faa'iideeyo ma odhan karo haddaad xataa aad soo dalbato soo tartan buu ku odhanaya oo haddaad guulaysato waad guulaysan individualist maaha macnaha waa qof dantiisa isagu shaksiyan isagu tiisiiyo u yaqaana adiya xataa kursigan uu reerka ugu fadhiyo inuu reerka ugu fadhiyo inuu aaminsaniin baa suuragala laakiin soomaalida kale waxay ka shaqaysaa danta deegaankii wada shaqaynaya haddana danta reerkiisu kaga shaqeeya nin waliba halkan somaliland markay joogaan waa sidaa nin waliba dantiisa ku shaqeeya ku raaciya anna waxaan xog ku hayaa in xafiis baa nin baa waraaqowle tago yidhi hebel xafiiskan shaqaaleysiiy wuxuu ku yidhi xafiiska reerkiina waa istila taga waraaqaha way dhici kartaa bahashana lama kala xishoodo way dhici kartaa iyaga maxaa ku dejiyey bay kula tahay barnaamijka daniyahu aniga saan ku sheegayo aniga layguma soo ababinin aniga nidaam qabiilo noolow aniga shaksiyan inaan qof dhisan oo caadiya noqda iyo aabahay igu dardaari jiray berigan yaraa ilaa iminkana igu dardaara laakiin qof reer hebel u shaqeeya noqon iguma dardaarin ilaa iminkana waxaad aaminsantahay inaanad reer hebel iyo inaad hoos u degto maya hoosuma degayn weligii qofna reernimadiisa kuma takoorin oo kuma ceebinin weligiina arrin reer kama hadlin
laakiin dee dadka aan anigu ka dhashay inay wax noqdaan inaan jeclaada ceeb maaha إن ama inaan wax la jeclaada wax tusaale ahaan qaar ba soo oran doona ninkaas waa qabyaaladaysta oo isaga reerka meel ka dhaxaliyey ka dhaxalsiiyey iyo oran doona ma nuuhay laakiin waxa kala duwan qabyaaladda iyo qabiilku horta waa kala labo qabyaaladdu waa in aan cabdixamiid ku xumeeyo inuu reer hebel yahay aan ku xumeeyo qabyaaladda haddaan anu saa sameyna qabyaaladaysta noqonaya laakiin qabiilku waa nasabka ilaahay kaa beeray oo ilaahay baa kaa beerayba si la isugu garto fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelkan soo follow gare like saar muuqaalkan sii share gare oo la wadaag saaxiibadaada aad iyo aad ayaad mahadsan tahay